حديث كان سدح طبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وحولهاي بينما وقت يحل رجل نين يمشي أسيغو صعد بطريق ودى أسيغو صعد أيا اشتد وحضر ناضي عليه دشيسة العطش أن أيا قدر ناضي فوجد مركزه هلي بئرا عيل فنزل وودغي نينكي فيها عيل كدحديسة فشرب مركزه عبي ثم انت اسكدب خرج وصوبحي فإذا مركب هو أسيغ بكلب وبئي يلهث أو هدنا عربك الله لاذنايو كاسو يأكل عنايو الثرى عرض قوين أما عيد قوين من العطش عن دراديسة فقال الرجل نيكي وحير مركب لقد بلغ حقيقي وحا قاري هذا الكلب ايغان من العطش عنك حقيسة مثل الذي كي اوكل كان اها بلغ متقاري بي عنك فنزل مركزه الدقي البئر عيلك يوكو دقي فملأ مركزه صوبوحيي خفه خفكيس ايو صوبوحيي ثم انت اسكدب امسكه حوكسو قبتي خفكي بفيه عفكيس يعني عيلك يقول قالي عيلك مركو دحقالي او يعني خفكي بيو كسو بوحيي عيلك قفكي كورمسو آدي كارو وإنو قعميسو كسو عدوي marka qofkii biyaha ku jiro wuxuu ku qabtay afkiisa uu ku qabtay markaasoo eelka uu ka soo baxaya thumma intaas kadib raqa uu soo fuulay eelka uu ka soo dhaxbaya koray uu soo fuulaya fasaqa markaasuu waraabiya alkalba eegi fashakara Allah subhanahu wa ta'ala ya ku shukriyay lahu ninki faghafara lahu wuu dhaafay Allah subhanahu wa ta'ala ninki qaaluu markaas waxay yiraahdeen saxaabadii yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyow wa inna lana miyuu noo sugnaaday fil bahaa'imi wax magaratada dhaxdeeda ajrun ajar yacni xayawaanka ama xayawaanaadka iyo wax magaratada haddaan wanaag iyo khayr u sameyno ajar miyaa noo sugnaaday rasuulka ilaahiyow qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam nacam haa fii kulli daati kabadin wax walbo beer u saaxiib ah rutbatin haddana qooyin ajrun ajri ayaa ku sugnaaday mid walbo beer u saaxiib ah oo haddana beerkiisa uu qooyin yahay thawaab iyo ajri ayaa ku sugnaaday marka xadiidkan waa xadiid aad u qiimo badan laga qaadanayo xayawaanaadka iyo wax magaratada in wanaag loo sameeyo loo naxariisto loo samafalo wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam nin ayaa xilli wuxuu socday jid ayuu socday markaasaa waxaa qabtay ninkii oon aad u daran ayaa qabtay markaasa asigoo socda wuxuu helay meel ceel ah ayuu helay ceel oo biyo ku jiro ceelka ayuu dhex galay ilaan wadaan mu wato qofkan waa keligiisa wadaan mu wato ceelka ayuu dhex galay markaasuu biyo ka soo cabay wuuna ka soo baxay markuu soo baxay isla markii wuxuu arkay ey oo meesha joogo oo carabka laalaadinayo oo carada quuyan oo ceelka agtiisa ahaatay cunayo markaas wuxuu yidhi walle eegan waxaa gaaray oonkii aniga i haayay mid la mid oo kale ay ahaayo markaas ninkii wuxuu sameeyay ceelka ayuu dhex galay mar labaad ayuu ceelka dhex galay markaas wuxuu soo buuxiyay khufkiisa yani khufku waxaa la yiraahdaa waa sigsaan laakiin tan waxay ka samaysan tahay maqaar ay ka samaysan tahay qofka lugtiisa uu gashanaya waa sidii kabaha oo kale wey ceelka intuu dhex galay ayuu khufkiisa wuxuu soo buuxiyay biyo ayuu ka soo buuxiyay kadibna khufkii markuu biyaha uu ka soo buuxiyay ayuu wuxuu sameeyay afkiisa ayuu kusoo qabtay si uu ceelka uga soo baxo ilaan xirig ma lahan qof qabanaya ma lahan waa inuu gacantiisa uu kusoo baxo wey marka khufkii markuu biyo uu ka buuxiyay ayuu afkiisa kusoo qabtay kadibna gacmihiisa ayuu kusoo baxay thumma raqa saasuu kusoo fuulay markaasuu eegi ayuu waraabiyay u naxariistay biyihii ayuu siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii uu ku shukriyey dembigiisna waa loo dhaafay intaas kadib saxaabada nabiga sala allahu calayhi wasalam ayay weydiiyeen waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahayow xayawaanaadka haddii wanaag iyo naxariis aan u sameyno ajir miyaan ka helaynaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wax walboo beer leh oo haddana quuyan thawaab iyo ajir ayuu leeyahay ayaa laga helayaa marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa xayawaanaadka in loo naxariisto sida eega mukulaasha dhammaantood in loo naxariisto samafal loo sameeyo ajir weyn iyo thawaab ayaa laga helaya allah subxaanahu wa tacaala ayaa kuugu shukranayo dembigan wuu dhaafaya